kadib cabasho soo noqnoqotay oo ka imaanaysay darawallada gaadiidleyda xamuulka ah ee isticmaala wadada u dhaxaysa Muqdisho iyo Wallaweyn taasi oo la xiriirta burcadda jidgooyooyinka dhigta ciidanka xoogga dalka gaar ahaan guutada 7 ee qaybta 12 Abriil oo ka dulaya cabashada shacabka ayaa joogteeyay howlgallada lagu sifeynayo kooxaha qowleysatada ah ee jidgooyooyinka dhigta kaltanka howlgallada maanta waxaa la ahaa hurinta labaad ururka 64aad guutada 7 ee qaybta 12 Abriil waxaana howlgalka maanta si gaar ah looga fuliyay inta u dhaxaysa deegaanada Carmaale iyo Kabihereg oo cabashadu ay ku badatay taliyaha hurinta labaad ururka 64aad guutada 7 qaybta 12 Abriil Yaxye Maxamuud Caraaye oo hogaaminayay howlgalkan ayaa warbaahinta ciidamada qalabka sida u sheegay in ciidanka xoogga dalka ay ku guuleysteen kala eridda maleeshiyaadka qowleysatada ah ee baadda sharci darrada qaadan jiray gaadiidleyda gawaarida xamuulka ee isticmaalaya wadada Muqdisho iyo Wallaweyn ayaa dhankooda ka mahad celiyay howlgalkan lagu eriyay kooxaha isbaarada dhigta haddana waxaan ku sii soconaa meelada Kabihereg حاجة نيجي نسوي ولا دوغلا أرمل هذا ugu dambeyn taliyaha ururka 64aad guutada 7 ee qaybta 12 Abriil Dhamay Cali Cabdullaahi Halac ayaa dhankiisa inoo sheegay in ciidanka xoogga dalka ay sii wadi doonaan howlgallada lagula dagaalamayo isbaarooyinka ayna waajib tahay ilaalinta hantida shacabka